السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله لهيك قالي جمال كستو أدونك كجبتان وبلاش ملك حسن محمد أيضا له عافية ما دي برواق كنا هذا أنت حنوسن إلهي سبحانه وتعالى عافية أنت عافية ما تقبتن إلهي سبحانه وتعالى أوزي يدين ما أنت وحان إيدين وظاهرت هذا فرح سنة ما أنت وحان إيدين وذا قصة هذا قروح بدن فالله حكا سنة يا إن الدنيا قصدان بلو إلى يدمات إن التفائد ذلك يا إن شاء الله بإذن الله الكريم. إن قصة waxaa soo wariyay دكتور الشيخ أحمد اليمني إله سبحانه وتعالى هبركة شيخنا مدحي سنكر الله كريم إله سبحانه وتعالى أنا عمر ذي عبادة سبحان هسيه إن قصتنا وحي كده حد عضي جبر يحاسك ينين كذا قصتنا وحي أودع أساس دتن إن شيخ وكل هاي إن وأسرع جمو لويلك صاحبان هين markaa gurigiisa tagana waxaan maqli jiray gabadhiisa oo dhexeysa jannati ya allah waxaan maqalnaa maanta ama gabar walba ninkeeda ay ku dhahdaa habibi baby my honey gacliyahayga adiga erey badan ha ugu badnaata maanta baby maasha allah gabadhaana waa gabadhii ugu horeysay ma dhahnaa mise gabadhaana waxay dhihi jirtay ninkeeda jannati شيخ وان يا أبو ده مر والبويد هذا اسمك جنتي هذا حبيبي حبيبتي أيوة وحيابنا عصارها سؤاله أنا مسكح لي كور رسن أي مال ندبوحان ده ولا له عن سؤال كويدية قبل هذا مر والبمحيكود هذا جنتي مركز صاوي ده شيخي إله سبحانه وتعالى هبركة وحوده هاي قصيدة ويدك تشوفه ميدجيسن كرتا markaas wuxuu dhaw ku dhageysanayaa 2 saac ilaa 3 saac waxay doontaa igu qaadatay kadib sheekhi iyo wiilkii meel ay fariisteen wuxuu ugu soo bilaabay gabadhan marka iskuursanay waxay ahayd gabadhii horumarkaygan ka talisay ee maanta heerka aan taaganahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka sokow ayadii soo gaarsiisay alxamdulillah gabadhii muddo ayaan isqabnay waxna iskuma dhalin kadib waxay go'aan ku gaartay gabadhii si ay ii mashquuliso oo aan ayada iskugu mashquulin inay gabadh ii guuriso ani waxa u maleynaa sheeko iska kaftan ah gabadh keensa ama waa ku keenayaa la idhaahdo kadib waxaan ku dhahay aniga gabadh ma keensanaayo adiga la ii keen kadib gabadhii dhaweey ka ahayd gabadh ay ii keentay way ii guurisay maasha allah muddo kadib gabadheedii kaleeta uur yeelatay wayna ii dhashay uurkii markay yeelatay gabadhii xoogaa gabadheeda aad ay u kuleedo hal dabeecad ay qabtay dabeecadeedo ah kuleel laba dib aan ku qabooday laba dib midna Ilaahay subxaanahu wa ta'aala keeno iyada ma keenin ragga maanta joogana waa iska ogtihiin ama dumarkaba qofka haduu qof wax dhali waayo qofka kale taa waxa maxaa dhahayay dhibaatada la saara ama qofkan uu istijaabiyo wax soo dhalo nimanka waxay dhahayaan gabadha wax ma dhalayso ma dhasho way reerkooda xitaa maxaa lahayd barnaamijkaas ku qabsanayo inay gabadha waxba dhaleen kadib xoolo hal dhib horta Ilaahay subxaanahu wa ta'aala keenay hal ibn ayada wato waa kulusha qof kulul waa zaid kulul ma sha Allah gabdhaha kulul fiicayna taaganaani ma sha Allah gabadhii markay gabadhii guurisay xoogaa adi khilaaf ani ayadan dhaxmaro dhah maalin ka shaqeeyo habeen meeshaan isa u qeylinayna isku haysan aan isku rafaadinay saan waa inta waa kan waa isku haystay hadaa hay'ad oo hayma idhahay hadaa ma yidho ma idhahay ma dhaleys ma ka wada waa furama ay dhirabtaa adii barnaamijkan zaid u weynaado dhahay ilaa in muddo ay isheysani hay waa seexana waa iga seexanay miya anoo taagan ama saan u qeylnaa seexanay miya waa iga soo saamiya gabadhii adiga habeenkii wal isku dhaganayo dhah kadib waxaan dhahay waayay shibaa ka dhahay qola iska seexday walaalkeeda waa cadintay oo si walaalkeed waxay dhahay walaalo miyaha iga soo gaar saan waay ninkii inta waaya saas ma ku dhahaa ana hadda imaanay meel saara iska daa wiilkii wiil aqli badan oo ma sha Allah oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala diin si walaalkeed kadib wuxuu dhahay ilaahay soo dhahay markeed wuxuu ku dhahay nimana saaxiibnaha balansanahay nimankaas soo wada wuxuu dhahay ninkaas iyo bixin laftu qaada jibineenay gabadhii waxay dhahay maxaa aad ninku dilaysaa yiraahday ninka dil ma ku dhinaan kaalay oo ninkaana ku dhaabis maya ninka adisaan ku yaala oo saan abaalkaaga gudi waay oo inta ka bixin waay oo saas oo soo sameysay ninkaas lafaha ina ka jibiyo ku xasili karaabani bas gabadhii waxay dhahay tala fareeyada ka bixin ninka guriga ku jira
guriga garaacda marka furaay walaalkina ninkii wiilkoob soo wac wuxuu dhahay idagee soo dhahay meeshaada ka kicin haye fariin uu soo diray wuxuu dhahay waa soo dhaartay nimana soo wadaa dhahay waxay sameynaysa arkay kadib adiga alcamu gabadhii albaabkii soo garaacay wuxuu dhahay heer inay igu soo jiminaysa aan u maleeyo kaleeta ee albaabka garaacaysa kadib waa ka furay waa ku barya iskaga bax gurigan see ugu baxaa gurigayga waa maka baxay waa ku tuugaa walaalo walaalkeena manuu soo wadaa ayuu ku dilin ee gurigan iskaga bax kadib waxaan dhahay guriga haddii hadda aan baxo oo hoos ku dego ayagoo soo socda iga hor imaadaan oo maxaa dhahay ee idilan ka war taas dhibaato maahno bas gabadhii waxay dhahday haa waa runtaa guriga iskaga noqo anaa banaanka u taagnaanaya maasha allah shaydaanka horta